بسم الله الرحمن الرحيم مرتدحاد waxaan salaamayaa shacabka Soomaaliyeed dalka iyo dibadda mawduuceena saddexaad wuxuu noqonayaa dareenka buka ama dareenkii bukay oo sii bukoonaya dareenka buka maxaan ka wadaa shalay dareenkeenu wuu bukay walba jiray maanta dareenkii bukay baa sii bukoonaya dareenka buka muxuu ka bukaa wuxuu ka bukaa kow dawada loo qorayo oo dawadiisii ahayn TB bay haysa anti malaria waa la qoraya taasan ka buka haddana waxa la leeyahay waad ku bogsanaysaa xageen kaga bogsanaya procedure-kii TB da wala ima marininbe short course chemotherapy weyn waa in 2 bilood uu qofku qaato intensive short course chemotherapy intensive 2 bilood oo qofka TB du hayso aroor walba intuu soo kaluu biyihiisa soo qaato kiniinkiisa inuu qofka caafimaadka hortiisa ku liqo kadibna markuu labada dhamaysto bil walba inta la ururiyo muddo 6 bilood ama 8 bilood oo kolba qaabka procedure-ka guideline-ka isticmaalaysa uu dhigayo inuu la tago kadibna taa markuu dhamaysto adigu tracing system aad samayso marka dareenku wuxuu ka bukaa dawada la qoriyo dawadii ahayn baan ka bukaa dareenku wuxuu ka bukaa socially bulshada shalay dhibkii haystay oo dhibkii ah oo waxba iska bedelin economically dhibkii shalay haystay oo wali qorshe lahayn oo halkii ah culturally dhaqankii shalay burburay ee rabnay in la soo celiyo oo halkii laga sii bilaabayo fitnadii shalay la abuurayay buu ka bukaa dhibaatadii shalay la abuurayay mid la mid ah ninkii shalay meesha fadhiya waa ninkii un midabku waa midabkii kursigu waa kursigii dhaqanku waa dhaqankii dhagax dhigu waa dhagax dhigii socodku waa socodkii hadalku waa hadalkii hanjabaadu waa hanjabaadii nidaamku waa nidaamkii ninka wax loo dhiibaya shalay fitnada abuuraya waa ninkii maxaa iska bedelay dadka la adeegsanaya waa dadkii la adeegsanaya un qaabka loo hadlay waa qaabkii loo hadlayay waa la isku day waa copy and paste dareenku wuxuu ka bukaa waxa soo dhan marka la sugayo dareenku wuxuu ka bukaa mugdigii hore aan ku jirnay oo mugdi kala sii galayno oo reeri mugdi baan ku jirnay dareenku wuxuu ka bukaa mugdiga habeenka ee soo galaya ee cabsidiisa leh ee mugdiga kala sii galaya dareenku wuxuu ka bukaa nidaam xumudu ka bukaa dareenku wuxuu ka bukaa rajo xumidu ka bukaa dareenku wuxuu ka bukaa nidaamkii loo baahnaa in la maro oon la marin dareenku wuxuu ka bukaa qalbi jab baa ku yimid dareenku wuxuu ka bukaa wadada la qaatiyey oo wadadii ah dareenku wuxuu ka bukaa dood la'aan adoo wada khaldan ku socdan waxba lagu sheegi karin buu ka bukaa dareenku wuxuu ka bukaa been la kala gadanayo dareenku wuxuu ka bukaa shalay diinta sidii loogu tumanayay dhaqanka sidii loogu tumanayay maantana wax badan iskama bedelin sheekhu wuu cabsanaya garaadku wuu cabsanaya suldaanku wuu cabsanaya aqoonyahanku wuu cabsanaya haweenku wuu cabsanaya cid walba way cabsanaysaa cabsidii un baa jirta dareenku wuxuu ka bukaa fikirkii shalay oo soo noqday buu ka bukaa dareenku wuxuu ka bukaa sheekooyinkeena guran iyo rogan oo halkii ka sii socda dareenku wuxuu ka bukaa ninkii shalay eeg cabdi maxamuud cumar jaajuusintii shalay u shaqaynaysay ee oon laf warka uga keenaysay unbaa maantana kursiga madow ag fadhida shalay kuwii markii la yidhi aan dagaalanno eeg qofka bili-aadmiga inuu intuu qori qaato uu dagaal galo uu caruurtiisii ka tago uu hooyadii u joogsan waayo aabbihii u joogsan waayo hadda qalbi dhagax intaasoo walaaladii ajeelka ku dhimatay xoolahoodii baa la dhacay intaasoo dhan buu joojin waayey miyuu khaldana xaguu ka khaldana mujaahid buu ahaay fikirka qofku hadday dadku fikir isla qaataan oo la yidhaahdo waxaan kuma jiri karno waa kuma jiri karno shalay markii noocaas la yidhi kii diiday ee intuu kari waayey soo noqday ee cabdi maxamuud cumar la shaqaynaya jaajuuska u noqday ee oon laf warka ka dirayey ee kala jebinayey ee soo noqday ee halkan joogay iyo haddana maanta kursiga madow ag fadhiya waayahay xabaddii markii ahayd uu soo cararo jaajuus buu noqday xabaddii uma adkaysanin lug waayahay nabad baa la qaato waxaa la yidhi nabad baa naas luga leh nabadda markii la qaatayna ninkii nabadda qaatay wuu dhaleecaynaya oo wuxuu leeyahay eeg bal munaafaqada eeg halgankii markii la waday ee la dagaalamayey wuu soo cararay maanta kursiga madow waxaa ag fadhiya dadkii cabdi maxamuud cumar uu ku shaqaysanayey nairobi warka uga keenayey xuduudda on laf markay soo tallaabayaan warka ka soo daba dirayey yaa kursiga madow ag fadhiya oo la talinaya waa hal shaksi magaciisa ma rabo inuu halkan ka sheego akbar munaafiq weeyaan maantana fidnadii uu barti ka sii wadaa markii la yidhi nabad aan qaadano
nabadii markii la qaatayna wuxuu leeyahay halgankii xaggeenu kaga tagnay war halgankeeni awey hal bal munaafaqada ayg waa si marna waxa weeyaan waa chokers niman chokara ah oo shalay markii la dagaalamay intii ka hor ordeen haddana soo jiirayay soo noqday cabdi maxamuud cumar la jaan qaaday u adeegayay dadka ku dirayay wararka u keenayay ilaa Nairobi loo dirsanayay ilaa Muqdisho loo dir dadka soo dhafoorinayay kuween ba maanta haddana intay la jaan qaadeen kursigii madooba ag fadhiistay sababtu waa maxay maxay la jaan qaadayaan kursiga madooba raba oo nidaamkii ninkaasi u socday maadaama u socdo sidii buu raba inuu adeegsado fidnada la dhalinayo ninkaasi wuxuu qorayaa hadaad aragtaan wadiyaabaysan wuxuu qorayaa qoraalla maanta intaasoo kun oo qof ay isugu jabi lahayd ninkii wadanka ugu sareeyay uu ag fadhiya bal fidnada inta la eegay la abuuraya dareenku markaa wuxuu ka bukaa wixii noocaas ah oo sii socda ayuu dareenkaygu ka bukaa fidnadii shalay la abuurayay maxaa anagu aan doonayna marka anagu cuno oo caba de waan cabi karay maanta waanu soo dagaalamay deegaankan waanu soo xidhmay waanu soo rafaaday cid iga mudan ma jiro maanta qof kasta oo deegaanka jooga qofkii wuxuu ahaa ma taqaana oo ixtiraami lahaa banahay qofkii laga bayri lahaa banahay 4 sano waxaan xusuustaa nin la yiraahdo Axmed Nuur Marayko ayaa igu yiri waa lagu xidhayaa habeen dambe ma soo carro Addis Ababa ma imanaya baan ku yiri waayo haddaan dhamaanteen wada cararno maxaa lagu halqabsan baan ku yiri ninkii Nairobi ka cararayn waan ka badbaadi laana oo anaga saan noo galay oo anagoo muwaadinimadana exercise garaynayna dadkii noocaas intuu isaga dhigay yuu raba haddana dadkii muwaadiniinta inuu adeegsado kuwii noocaas ah haddana in khaaq laga dhigo kuwii noocaas ahana in laga dhigo murmudi waxaas wax shaqaynaya maaha waan dooxayna wallahi zirzirkoodan haddii fidnada dadka ay ka dayn waayaan zirzirkooda magacantooda halka Soomaali ugu yeedhin waan ceebaynaynaa galkan ka saaraynaa because dareenkeenu maaha dareen shakhsi lagu barbaarinayo oo lagu maxaan ku yiraahdaa lagu ixtiraamayo fidnada waxa la yiraahdo dilka way ka daran tahay diintuna way sheegtay dilka qof baa ku dhiman kara laakiin fidna maanta in la abuuro oo dadka la isku diro intaas qof baa maalin walba lagu talagalay deegaanka inay dhimato dadka un baa soo daalay wara maanta deegaanka dhibaatada ka jirta laba gabdhood oo foodley oo ari la joogta wada qoslaysa hadii la yiraahdo kursiga madow lagama seexanayo caro lagama seexanayo Soomaali wallahi runtaan idin sheegi marka dareenku wuxuu ka bukaa waxa jira laakiin alxamdulillah rabbil caalamiin maxaa weligood ba ha wadaan waxay doonaan ha abuuraan Soomaalina maanta dhig jala qusteyn mayso cidna islayn mayso dadna la isku diri maayo fidna la abuuri kari maayo ninkii fidna wadana Ilaahay soo qabto ee dadka fidna u horseedaya noocu doonaha noqdo darajadu doonaha la ahaado ku adeegsanaya Ilaahay ka soo qabto ummadda ka adeegsanayana te Ilaahay soo hadiyo laakiin anaku in muwaadinimadayada dadka oo madax la isu gelinayo in aan daawano oo jawadaha intaan gacanta la galno amaan 4000 ilaa 5 waan ilaa 5 weyne taa waan bakanimid waan diinay Soomaa imikana in aan aamusno oo naliidaahda nabadgeliya ku gado nabadgeliyada muwaadin baan ahay waxaan ka hadlayaa waa kuwan is my right waa kuwan ka hadlayaa kuwan exercise garaynaya adna kuma dhibayo waxna ma sheegayo adun baan ku saxaya haddaan kuwan adigu ku dhaqmin de ESTV soo furo SRC soo fariiso waxaan eeg Cabdi Maxamuud Cumar wuxuu ku saxsanaan jiray marka qaarkood marka meediyaha iga damiyo intuu yiraahdo iyo shirka dadka u sheegi jiray uu oran jiray war waxaan waxa la wax ka shaqeynaya ma jiro niil aan fadh weeyaan buu oran jiray kolkaasuu qofku qanci jiray ta inta shir loo qabta dadka waxani waa niil aan fadh hana la yiraahdo waxba kaba jiraan haye marka ka bacdi dadku qaarna guryahay ku noqoni qaarna dadka u dagaalami jireen bay u dagaalamiyo ya kuwan qaabkii loo dhaqan gelin lahaa u dagaalami hadda leedahay guryaha la isku soo jabina hal la isku soo jabiyo shalay waan lagu soo jabiyay hal la isku soo jabiyo hal la isxiro hal la isgaraaco biyo hal la isgeliyo min jigarlam dad waxa uu joojinaya iyo kooraska noocaas waan soo dhamaysanay that game is over maanta deegaankan sharci iyo qawaaniin iyo muwaadinimo baa dadka lagu hor socon kara qof garaad leh aqoon leh waqti lagu ma jiro oo nin
shalay jaajuus oo laf warka ka keenayay adiguna maanta aad leedahay war ii keen waqti aan daba soconno ma jiro kaama daba socon karno kaasna mastermind intuu noo noqdo inaan daba fadhiisanno oo kaa aan ku xidhmanno oo qoraaladiisa lagu dhaqmo dee lagama yaabano kaana qoraaladiisa dadka waan uga digaynaa si officialan usoo boosti garayn doonaa hebel soomaaliya iska jira waxaa kaagaga daran ninkaasi qoraalada uu soo boosti garaynayo ma garanayo inta la qoro unbaa loo dhiibayaa isaga waayo qofkan wuxuu dhiibayaa dee isagu waa qof aqoon leh wuxuu ka xishoonayo afka uu soo marin karin baa jira wuxuu dhiibayaa markaa wixii afka uuna soo marin karaynin isagu markaa bostin buu garanaya in la boosti garayo riyaaluu ku doorsanaya dadka noocaas ayaa inagu xirxiran markaa dareenkeenu taasuu ka baxa oo dareenkeenu habeen walba u ka welwelaya dadka noocaasa doonaya carruurtaada inay liqaan dhaqankaaga inay liqaan diintaada inay liqaan haddana in lagu seexiyo war labada nidaam waxay ku kala bedelan yihiin kii shalay waad isu soo jeeday oo waxaad ogeyd in lagugu soo duulay kan wuxuu ku leeyahay waxba duulimaad kumay diintan wanaajinaya dhaqankan wanaajinaya dadkan isu keenaya dadkan wanaajinaya which is false erey kasta oo kursiga madow ka soo baxa waa in loo qaato the reverse